waadin salaam akhaare meel baa joogtaan waa mar kale iyo mawlid xujaale bulsho walba dadka hogaamiya ama guulaysta ama horumara waxaa gadaal ka riixa 3 fikrad oo muhiim ah waa 3 xoog oo mar walba caawisa dadka guulaysto 3dan fikrad waxay kala yihiin social capital, economic capital and cultural capital. fikradahan waxaa soo saaray sociologist caan ahaa oo reer Faransiis ahaa oo la oran jiray Pierre Bourdieu. haddii aan ku hormaro social capital waxa weeyaan asxaabta aad leedahay, saaxiibadaada, dadka ku hogaamiya, dadka ku tilmaama waxyaabaha ka maqan, fursadaha ku soo bandhiga, informationada ku siiya muhiimka ah, qofka mentorka ku noqdo, bulshada qof walba oo kugu caawiyo waxa aad u baahan tahay oo ku tilmaamo ama ku haga ama ku caawiyo ama ku waaniyo wuxuu soo hosgalayaa networkaaga oo social capitalka ah. marka waa hanti aa haysatid. tusaale ahaan qof waxaad garanaysaa meel muhiima joogo, meeshaasna dan ayaa kaa soo gashay ama shaqaa uga baahatay, qofka ayaa la xiriiraysaa, wuxuu kaa caawinaya informationkii aad u baahnayd. qof kalaa laga yaabaa inaa u geysatid CV-gaaga ama barnaamij aad diyaarisay inuu ku akhriyo, uu kaala taliyo. marka haddii aadan lahayn ama aadan garanaynin qofna oo social capital aadan lahayn oo qof ku caawiyo ama meel aad maaragtay danka lahayd qofkii ku jiray industrigaas, hadduu ahaa dhinaca ganacsiga, dhinaca waxbarashada, dhinacay doonta ha noqotay, haddaadan qof ku garanaynin ama bulshada aadan cidna ku lahayn, aadan ka garanaynin, way kugu adkaanaysaa inaad markaas gaartid waxyaabaha aad u baahan tahay. midda labaad waa cultural capital. cultural capital waxaa weeyaan xirfadda aad leedahay, waxbarashadaada, barbaarintaada, digriiga aad samaysay ama koorsada aad baratay, xirfad noocee doonto ha ahaato. waxaa kaloo soo hoosgalaya cultural capital barbaarinta lagu soo barbaariyey, qaabka aad maaragtay bulshada ugu dhex nooshahay, waxyaabaha lagu soo baray, guriga lagaa soo baray, environmentiga aad ku nooshahay, waxyaabaha aad ka baratay, kalsoonida aad isku qabtid iyo sida aad dadka ula macaamulaysid, sida aad u hadlaysid, dhaqankaaga, valueskaaga, qiyamkaaga, waxaa u taagan tahay, dhammaan waxay soo hoosgalayaan cultural capital. intaa dhanna marka laysku daro waa hanti kaa caawinaya inaad gaartid waxyaabaha aad bulshada uga baahan tahay ama horumarka aad rabtid inaad samaysid. midda saddexaad oo ah economic capital waa dhaqaalaha iyo hantida qofka u haysto. tan marka cid walba ma haysato bulshada ka mida, in yar ayaa haysta hanti iyo dhaqaale ama lacag ay waxay doonaan ku furdaamiyaan. balse inta kale, labada kale oo culturalka iyo socialka waa wax aad samaysan kartid. saddexdan inaad fahantid oo aad baratid waxay kaa caawinaysaa inaad isku qiimaysid ama isku diyaarisid qaabka aad rabtid bulshada aad ku nooshahay inaad horumar uga samaysid. haddii aadan dhaqaale haysanin balse aad waxbarashadii iyo network kale iyo social capitalkaaga kale aa haysatid, waxaa suuragala inaad heerkaa rabta aa gaadhid, kadibna economic capital aa heshid. waxaan rajaynayaa 3dan fikrad oo kala duwan inay wax kaaga baxeen ama wax ay ku iftiimiyeen. haddii ay sidaa tahay, fadlan la wadaag asxaabtaada si ay iyagana uga faa'iidaystaan. wixii comment ah ama talo iyo tusaale ah, fadlan hoos iigu soo reeba. waa mahadsantihiin.